Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Shahwada tayadeeda in sare loo qaado waxay qayb muhiim ah ka tahay dhalmada. Qofba qofka kale inta uu ka nafaqo fiican yahay ayuu kaga tayo sareeyaa. Cunnada la qaato nuuceeda qayb mug leh ayay ka tahay shahwada tiradeeda iyo tayadeedaba. Muuqaalkani waxaan ku soo koobaynaa dhowr cunto badin kara shahwada. Lambarka ugu horeeya waxaan ka dhigaynaa beeda, waayo waxay kulansataa borotiino iyo nafaqooyin kala duwan sida fitamiin A. Waxay unugyada ku jira biyaha ragga ka difaacaan waxyeellada kala gedisan. Dadka madhaleyska ah inta badani waxaa daciif ah mise liita tirada ama tayada shahwada, sidaa daraaddeed beeda waxay kordhinaysaa tirada iyo tayada. Muuska, midhahan macaanka ah mise muuska waa midho aad u macaan badan. Macaankaasi waxaa u sii dheer fitamiin A, B1 iyo C. Wuxuu habdhiska taranka mise reproductive system-ka ka saacidayaa in loo soo saaro shahwo caafimaad leh. Bromelain waa dheecaan muuska laga helo. Caabuqa ayuu ka hortag u noqon karaa. Lambarka saddexaad, lowska. Lowska waxaa ka buuxa dux badan, laakiin nasiib wanaag duxda ku jirta waa nuuc caafimaadka u wanaagsan. Nuuca loo yaqaano unsaturated waa duxda laga helo lowska. Waxa uu unugyada shahwada ka saacidayaa in la soo saaro gidaarka unugga oo afka qalaad lagu yiraahdo cell membrane. Waxaa kaloo laga helaa omega 3, waa nooc kaloo ka mid ah duxda laga helo midhahan qiimaha badan. Waxay badinaysaa mugga mise volume-ka shahwada ragga ah, ayadoo kordhinaysa qulqulka dhiigga xiniinyada. Shukulaatada, chocolate-ka madow waxaa ku jira borotiin la dhaho L-arginine. Ayadoo qofka uu qaato xaddi aan badnayn wuxuu sare u qaadi karaa mugga iyo tirada sidoo kale shahwada. Ruumaanka, cilmi baarisyada waxay tilmaamaan in laga helo antioxidants. Antioxidantsku waa maadooyin jirka ka difaaca waxyeello kala gedisan. Waxay kaloo maadooyinkani kordhinayaan shahwada. Faa'iidooyinka kale caafimaadku uu leeyahay ruumaanka waxaa ka mid ah: wuxuu yareeyaa raadadka gabowga, wuxuu sare u qaadaa difaaca jidhka, wuxuu yareeyaa maadooyinka dili kara shahwada ragga. Basasha waa lambarka lixaade. Habka ay basashu u kordhiso shahwada iyo ruumaanka aad bay isugu dhow yihiin, waayo waxaa ku jira sidoo kale antioxidantska aan hore u tilmaannay. Laakiin basasha waxaa kaloo laga helaa maadda kaloo la yiraahdo flavonoids oo iyadana qayb ka ah badinta ragga mise badinta biyaha ragga.